السلام عليكم وأنيقو خالد عبد الرشيد يوتيوب channelka daawanaysid oo ka faa'iideyso muuqaalka maanta wuxuu ku saabsanaan doonaa qaybtii labaad ee buuggeenii Think and Grow Rich amaba fikir oo maalqabeen noqo. Shayga afraad ee laga qaadanayo buugga ayaa ah organized planning. Haddaba haddii aad doonaysid inaad gaadhid hadaf weyn oo aad nolosha ka leedahay, maxaad samayn lahayd? Wadada ugu habboon ayaa noqonaysa inaad samaysatid hadaf yar oo ku gaarsiinaya hadafkaaga weyn, isla markaana dhamaystirkoodu ay dhiirigelin ku noqonayso. Tusaale ahaan, haddii aad doonaysid inaad qoraa weyn noqotid, waa inaad wax badan akhridid, si fiican u baratid luqadaad wax ku qorayso, iyo inaad qaadatid kooras ku baraya habkaad qoraa saameyn leh ku noqon lahayd. Markastoo aad dhamaysid hadaf yar oo ka mid ah kuwan, waxay kuu noqonaysaa dhiirigelin oo waxaad u sii dhowaanaysaa hadafkaagii weynaa ee ahaa inaad qoraa weyn noqotid. Haddaba maxay yihiin hadafka koowaad, labaad iyo saddexaad ee ku gaarsiinaya hadafka weyn ee aad doonaysid inaad xaqiijisid? Qoraagu markana wuxuu noo sheegayaa in haddii qorshahaagii koowaad sidii la rabay aanu noqon, inaad mid cusub ku bedelato, haddii uu ka cusub ku caawin waayana mid kale ku bedelato. Sidaasi leeg ilaa intaad ka helisid qorshe amaba plan wax ku ool ah oo ku caawin kara. Isla halkanina waa halka ay dad badani ku guul daraystaan, taasoo ah joogtayn la'aanta inuu qofku la yimaado qorshe cusub. Shayga shanaad ee laga qaadanayo buugga ayaa ah persistence amaba joogtayn. Guul kastoo la taaban karo waxaa aasaasi u ah amaba ay laga maarmaan tahay in laga helo joogtayn. Qoraaga buugga ayaa tusaale u soo qaadanaya Henry Ford, mulkiilaha shirkadda gawaadhida ee Ford. Wuxuu doortay in la dhiso matoor ay gebi ahaanba 8 dhululaba hal block ku wada jiraan, wuxuuna injineeradiisii ku amray inay soo saaraan naqshadii matoorka. Kadib bay injineeradiis ku waafaqeen in arrinkani aanu macquul ahayn. Si kastaba ha ahaatee soo saara. Laakiin macquul maaha. Dhaqsada oo ku dhaqaaqa shaqada ilaa iyo aad ka guulaysanaysaan waqti kastaba hanigu qaadatee. Kadib bay injineeradii hawshii ku dhaqaaqeen oo wax kale uma banaaneen haddii ay doonayeen inay sii joogaan shaqada. Haddaba markii uu sanad ka soo wareegay, ayaa Ford oo la eegaya injineeradiisii wixii ay qabteen, waxay u sheegeen inaanay jirin waddo lagu filin karo amaradiisa. Dhaqsada oo mar kale eega, waan doonayaa waanan helayaa. Way ku dhaqaaqeen hawshii. Aakhritaankii way heleen habkii ambaba waddadii lagu soo saari lahaa naqshadii matoorka. Qofka niyad jaba amaba quusta waa ka aan guulaysan, qofka guulaystaana waa ka aan niyad jabin. Napoleon wuxuu leeyahay waxyaabaha sababa in qofku hawsha uu wado joogtayn waayo ay ka mid tahay ka baqidda dadka cambaarintooda iyo dhaleeceyntooda. Haddaba waxyaabaha kaa caawinaya inaad ka adkaatid waxaa ka mid ah inaad yeelatid organized planning amaba qorshe cad. Sidoo kale inaad isku ag hareeraysid dadka ku dhiirigelinaya, talo fiican ku siinaya, wixii khalad ahna kaa saxaya. Isla markaana aad ka fogaatid dadka ku niyad jabinaya ee saameynta xun kugu leh. Shayga lixaad ayaa noqonaya jihaynta tamarta jinsiga. Sida uu qoraagu noo sheegayo, waxaa jira dhowr shay oo qofka bini'aadamka ah dareenkiisa aad u kiciya, sida inuu maalqabeen noqdo, inuu yeesho amaba uu la saaxiibo dad ka farxiya, ka qosliya, horumarkiisana jecel, inuu xidhiidh qof la yeesho, iyo inuu heese dhegaysto. Haddaba siduu qoraagu noo sheegayo, shayga ugu weyn ee qofka dareenkiisa kiciya inuu yahay rabitaanka galmada. Qoraagu wuxuu noo sheegayaa in qaybta ugu badan ee tamartaasi aad u jihaysid inaad isku mashquulisid amabaad qabatid shay waxtar leh oo ku anfacaya, iyo in qofka si xikmad leh u isticmaalo tamartaas uu gaadhayo darajada genius-ka. Qofka si khaldan oo bilaa xikmad ahna u isticmaala inuu la mid yahay xayawaanka. Haddaba haddii aynu hadalka qoraaga u soo qaadano casrigan aynu ku noolnahay, waxaad arki doontaa inay dad badani u jiheeyaan tamartooda inay daawadaan filmo xunxun iyo wixii la mid ah ee aan waxtar iyo faa'iido u lahayn. Waana sababta dadka 40 jirka ka yari badanka ay hadafyadooda u gaari waayaan. Shayga ugu dambeeya ayaa ah fear, baqasho. Baqashadu waa waxyaabaha kaa hortaagan inaad guul gaadhid. Guushaasi haba ahaato mid dhaqaale amaba shay kale aad doonaysid inaad guul ka gaadhid. Napoleon wuxuu leeyahay waxaa jira 6 shay oo aad looga baqo: faqriga, dadka cambaarintooda, caafimaad darrada, inaad qof qaali ah weydo, gabowga, iyo geerida.
baqashadu kaliya waa xaalad maskaxeed uun, waxaana lagaga gudbi karaa inaad Ilaahay si dhab ah u tala saaratid iyo inaad mar walba isku mashquulsid wixii ku anfacaya. qaybtii hore haddaan daawan, linkiga hoose ka daawo. haddii aad ku cusubtay channelka, subscribe saar. haddii aad ka heshay muuqaalkana like, asxaabtaadana la sii wadaag. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.